ugu horeyn balaan idinla wadaago Soomaalidu sidee hadda ku helaan fikradaha ganacsiga. Daraasaddu waxay muujisay 81% waa isku dayaan. maaha qof wax ku salaysan cilmi ama aqoon ama baaritaan wixii suuqa jiray oo mid kamid ah soo qaatay. 3% waa aragnimo. 2% dadku waxay ka helaan shabakadka ama network ka tirsan yihiin oo kuwaan oo kale waana meelaha laga helo fikradaha ugu fiican ee adduunka. 1% ee fikradaha Soomaalidu bilaabaan waxay tahay wax ku salaysan aqoontooda waxay barteen. 2% nasiib ay ku helaan. xoogaa farqiga u dhaxaysa ku arki doontaan dadka jooga Soomaaliya gudaheeda iyo dadka jooga galbeedka. waxa laga yaabaa ku dayashada waxay ku badan tahay Soomaaliya gudaheeda 86%. sawirkeena dhabta hadda waa midkan. marka mar haddii sawirkeena dhabta sidan yahay marka aan isweydiino sidee lagu helaa marka fursadaha sidee lagu ogaado. waxaa la isweydiiyaa yani theory ahaan fursaddu ma wax jirtaa ganacsigu mise waa la abuuraa. hadday jirto sidee lagu arkaa. haddii ay tahay wax la abuurana sidee lagu abuuraa. waxaa laga yaabaa invention ama technology haddii maskaxda kusoo dhacdo badanaa waxa lagu jiray wax la abuuro. computerka mar baa la abuuray, kamarada mar baa la abuuray, marka iyadoo product cusub la abuuray. laakiin waa yarihi wax saasi. saddex marka waxaa jira theory mid waxay tiraahdaa fikradaha waxaa lagu helaa badigoob. fikradaas ragga u ololeeya waxaa kamid ah tracker oo taqaaniin oo la dhaho raggan guruga oo management guruga hada xoog qora. ninkaas wuxuu yiraahdaa fikradda waxaa lagu helaa dadaal ku talagal ah. yani qofku waa inuu dhaxal suuqa ugu xirto oo badigoob u galo sidoo ku heli lahaa fikrad ganacsi. dabcan dadkee baa ku heli karaa fikradda badigoob gadaal baa ka sheegi doonaa. ninka labaad oo isagana aad u xoog qora mawduucan wuxuu yiraahdaa fikradaha waxaa lagu helaa yani qofku inuu fikrad helo waxay ku xiran tahay macluumaadka ama xogta uu hayo intay leeg tahay iyo awoodda uu u leeyahay inuu ku ableeyo inuu ku analyse macluumaadkaas. isagoo wuxuu leeyahay qofka uu ka macluumaad fara badan yahay awooddiisa inuu macluumaadkaas uu ableeyana ay ka sarreyso uu ka jaanis fiican yahay inuu helo fikrad fiican. marka dadka baadigoobka fikradda ku hela inta badan waa dad bees waxbarasho leh. sidaas kale waa dad bees waxbarasho. waayo qofku markuu rabo inuu dadaal ku talagala sameeyo ama uu xog ururiyo oo qof awood u leh inuu fahmo bay'adda uu ku nool yahay, qof awood u leh inuu fahmo macluumaadka meesha yaalla weeyaan. groupka labaad waxay dhahaan fikradda waxaa lagu helaa nasiib. waa waqtiyaa nasiib. qofku waa la kulmaa isagoo iska soconayo la kulmaa. raggaas Krisner inaa wada taqaanin baa laga yaabaa Austrian School of Economics waa rag odayaasha ah. isagu wuxuu yiraahdaa ragga nasiibka ku hela fikradda waa dad alert dad diifoon. qofka hadduu alert yahay oo dareenkiisu taagan yahay wixii soo maraba xag kale u rogaya wuxuu leeyahay waxaan maxay saan noqdeen su'aal iska weydiinaya. through that discussion oo su'aalaha iska weydiinayo ayaa waxaa kusoo dhex baxaysa meeshii fikrad ganacsi wax dhowrta noqota baa kusoo dhex baxaysa. marka ninkaana wuxuu leeyahay dadka fikradaha ku hela diifoonaantu badanaa dadka fikradaha ku hela nasiibku waa qof diifoon alert. qofka kale waxaa laga yaabaa wax kastoo ag mara inuusan ba kuwa baraaruginba oo saxba iska weydiin ayaa dhici karta. groupka saddexaad waxay dhahaan fikradda waa la abuuraa ama waa la amaamudaa. groupkana Schumpeter oo aan rajeynayo inaa wada taqaaniin ayaa aabow ah. isaguna wuxuu yidhaahdaa fikradda waxaa amaamudi karaa ama garayn karaa dad mala awaal leh. qof wax mala awaali karaa. qofka wax mala awaali karaana waa qof innovative ah, hal abuur leh, creative ah. muujida qofkaas weeyaan. marka theory ahaan fikradaha ganacsiga qaabka lagu helo waxaa laga yaabaa markaad akhrido literature-ka inaysan qudaysho ku jirin. qudaysho baasha la dhaho oo Soomaalideena dhibteena ku haysa inaysan ku jirin baa laga yaabaa. oo saddexdaas group lagu helo. haddii aysan waxyaabaha qaarkood aysan clear ahayn way joojin kartaan maaha inaan wada qasab maaha. marka haddii aan kasoo gudubno taas waxaan dhahaynaa aqoonsigaada aqoonsado fursad waxay ku xiran tahay kow aqoonta qofku u leeyahay suuqa iyo macaamiisha. qofka uga badan yahay marketka suuqa iyo macaamiisha uu ka jaanis fiican yahay inuu helo fikrad. awowna fikradaynu raadinayno waaynu hadda energy-ga siinayno waa fikrad unique ah, waa fikrad koboc samayn karta, waa fikrad tartanka ka qaybgali karta, waa fikrad mustaqbal leh. hadhowta shirkad mustaqbalka maaha fikrad yesterday shalay ah, waa fikrad maanta iyo beri ah. fikradan ka sheekeynayno laakiin fikrad shalay ah yes suuqa waad heli kartaa, waad heli kartaa, waad arkoon kartaa. waan ka sheekeynayna waa fikrad mustaqbal weey. fikrad mustaqbal leh. marka fikradaha mustaqbalka leh waxaa hela qofka aqoon fiican u leh marketka
iyo macaamiisha ayaa hela dadkaasi waxyaabahay raadiyaan waxaa kamid a dhibaatooyinka jira suuqa waxay raadinayaan customerska disappointed ka noqday waxaa laga yaabaa Virgin inaa wada taqaaniin Richard Branson iyo soo ku helay diyaaraddan Virgin Airline 2-3 jeer trip wuxuu raacay Mareykanka British Airways markaas wuxuu arkay dadkoo dhan inay ka cabanayaan simple stat marka dhibaatooyinkii dadku ka cabanayeen iyo isagu wuxuu bedelay advantage weaknesskii British Airways oo ah inaysan customer care ku filan siinin dadka lacag ay caadina ku charge gareynaysay ayuu ka faa'iidaystay fikradii dhab halkaas u ka helay marka qofku ka fahamsan yahay dhibaatooyinka jira suuqa dabcan waa inuu qofku marka wax aqriyo uu ogaado waxyaalaha dadku cabanayaan uu ogaado focusku hadba media meeshu saaran yahay uu ogaado ayay ku xiran tahay waxaan leenahay sida kale oo fikradaha lagu aqoonsado waa defaultna ama alertiga defaultna waxay ku xiran tahay dabeecadaha dadka oo dadka ilaahay abuuray qaarna waa curiosity wax walba waxay iska weydiinayaan qaarna waxaa laga yaabaa inaysan badreeminba wax kasta agtooda ka dhacay wax kasta agtoodana inaysan badreeminba ayaa dhici karta arrin saddexaad oo muhiim ah oo dadkeena aysan ka faa'iidaysan oo fikradaha lagu helo waa qofku shabakadaha ama network oo ka tirsan yahay shabakadahaas ha noqdeen ama kuwa cilmiya ama kuwa sida kuwaan oo kale ha noqdeen marka dadka shabakadaha fikradda ku helaana nooca fikradda ay helaan waxay ku xiran tahay shabakadda ay ka tirsan yihiin aqoonteeda iyo baaxadda macluumaadka hayso haddii aad ka tirsan tahay shabakad chat fikradda helaysa waa fikraddii chatka waa network laftigeeda la soco haddaad ka tirsan tahay shabakad oo aqoon oo maalin walba research iyo daraasada lagu soo bandhigana fikradda helaysid waa fikrada ku salaysan aqoontii iyo wixii shabakaduna waxay ku jiraan waxyaabaha aynan ka faa'iidaysan xataa dadkeena professionalka waa laga yaabaa haddii la weydiiyo average sanadkii imisa networking events baa ka qayb gashaa inay aad u yaraadaan maa laga yaaba qofku markuu fikraddii helo fikrad kasta male fursad maalgelin fikradaha qaar baan timekoodii la gaarin qaar baa weli aan ku habboonayn suuqa qaar baa u baahan in lasii bisleeyo oo wax badan lasii shiilo marka fursadaha oo leh maalgelintu waa in ay yihiin fursado dabooliya baahi jirta baahi muuqata haddii baahideedu aysan hadda online waxaa laga yaabaa maalmaha inaad daawanayseen tourism loo aadayo dayaxa iyo inaad daawanayseen baa laga yaaba oo wali leeyahay technology-ga hadda la develop garaynaya 2020 bay bilaamaysaa marka waa wax aan hadda diyaar ahayn oo u baahan time dheer ayaa laga yaabaa waxyaabaha marka muhiimka waxaa kamid ah in la ogaado baaxadda baahidaasi leedahay tusaale oo hadda aynu fahmi karno waxaa laga yaabaa haddii yani qofku markuu fikradda raadinayo qofkiina ma kasoo shaqeeya weli consulting management consulting iyo wax lamid ah dadka management consulting ka shaqeeya tool yar baa la siiyaa oo ay wax ku fahmaan hadduu ku furfuraan